بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somali soo dhawaada welcome Facebook live. waxyaalo badan aan rabnaa inaan kala faa'iideysano, marka waxaan jeclahay inaad ku soo dhawaataan oo ma aragtay ID-giina aad ka samaysataan. soo dhawaada. Waa ku salaam calaykum. Eedo waa ku salaam Maxamed. soo dhawaada. وكاقابة يد معاه وكاقابة يد ما شاء الله. عاش وسلام ولا شيء. وين السلام كل يوم ما شاء الله ما شاء الله. no numberku waa inuu kor u kacaa, kabacdi waa hadlaaya moogta marka numberka la kiciyo. waa in salaam Faadimo waa ku salaamay, maama Xalima Baayo waa ku salaamay. hilaac waa kaa qaaday. Thank you, welcome. عاش عدي وكاقاضي ما شاء الله ولا شيء معان. آمين آمين. افرح نور كاقاضي ماما كاقاضي. صار روح وقع صار روح. شير ثانك. واو وكاقاضي فاتح فاتح وكاقاضي. أمين وكاقاضي. سودوان والله سودوان. يوت حسين وكاقاضي والالكي. سودوان سودوان. فرحوني. أبا معه وين كقاضي منطق وكاقاضي سلامته. فاتح وكاقاضي ماما ما شاء الله. وين كقاضي كل جنبه. سودوان. وعبد محمد حاشي بقول. عبد عمر وكا قاضي ولا شيء. هذه هذا الكاغا قاضي ما شاء الله ما شاء الله. محمد وكا قاضي. عبد الله محمد وكا قاضي إن شاء الله. سو دوام ما شاء الله. سلام سرع ناصر محمد وكا قاضي. سلام سرع ذيك النفط هذا تليفوني بلابين. السلام عليكم. مركا ساموس برنامج كثير. وكاقاضي أبيات. فاطمة حسن
جارك مديرة وكاقاضي welcome Somaliland كاقاضي شير سؤال وروحوغا واو ولكن قالي وكاقاضي كاقاضي أديان كاقاضي السلام عليكم walaalyaashay Soomaaliyeed iyo welcome meel alaaliya meeshaad iga fiirsanaysan adduunyada waan ogahay in dad badan ay fiirsadaan marka waxaan leeyahay walaalyaal welcome everywhere marka waxaan rabaa maanta inaan nooga bilaabo in Muqdisho boy ka bacdi aan u dhaadhaco galmudug waxay ni sheegayaa in magaalada Muqdisho saad u ogtiin ba xalay ma ahay habeen hore ninkii sirdoonka ugu sareeyay Soomaaliya oo la dhahaayay Fahad Yaasiin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in gacan la isku qaado wax yar lagu kala qabto sabab ninkan wuxuu ugu sheekeeyay Soomaalida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ugu sheekeeyay inuu aadahayo Eritrea oo soo xirahayo kooraskii bil iyo barkii ciidamadu ay ku maqnaayeen waligay maana maqal kooras 1 month and half oo ciidan lagu siin karo مع اللي بلاد لقوا مسين كرا عيدان كم يدري وباهن يهاي anyway وحو كبحي إنه صاحرة إن عيدا ماذا وحودي أو عيدا ماذا ولا ساقات مركا وطن حالين إني شيء ساكن إني شيء عيدا ماذا لا ساق حين أيوة صدم كون أو إلكترية أو لقصوا تجينا هاي مقالة مقدشو إن وحكلون إني شيء هيا خاضر وصاح هذا الشيء فهد ياسين وحل يجري وإناد مدحوين فرماتش أتكعلي ساؤون آدين مقالة إلكترية Eritrea dhibka haysta maanta haddaad ogtiin iyo haddaadan ogeynba waagii ay ka go'day Ethiopia qadar waxay iska dhigtay dad ay isku haystaan inay dad islaana yihiin in markii dhowr jeer la yiri waxaana inii sameeynayna waxaana inii qabanaya aan loo sameyn waxba Eritrea laakiin shicibkii iyo dawladdii la isku kiciyay waa markii ay ka go'day ka bacdi Ethiopia waxa ka dhacday dhibaato badan dagaal badan ay soo martay culimo badan oo Soomaaliya waxaan dhilaa culimo كنول مقالة إلكترية إن لو ذا حرحري يقار صافة كذي أو يمد قربها إسبيشال مقالة إنجليز كدد بدن ومجنجلية ويمدو حاجة دينات كسو عرّي إن لو جهيستو مركا سببتها محاكة دنبي إلكترية وحن كدعي وحن دنبي والشعب كإلكترية اسكو وضع نفتو أفك اسكو ذا جلية وعلومات إن جيس إنفستمنت كجلية جيس إن دد دولة كسو هرشة يستاهل نقدين horta dad badan waa ku dhinteen dad badan ilaa hadda waa xiran yihiin xabsiyadii ku jiraan marka waxa inii sheegayaa qadaro meesha ay lug tala gasho problem baa ka jira dad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jaa oo hal mar qalad ka galay wadanka qadar oo la yiri dib dambaha ugu noqonin sidii in Soomaaliya ay qadar xukunto en qadar adduunweynaha waa uga dacwoonay laakiin mar dhow jawaabaheeda ayaduna waa helaysaa jawaabo aad u kulul ayaa ka soo bixi doona UN Internationalka ay iyo human rights ka إن وقت جي لما جارين أن تلفنا ذا قبناي إن وتركيا ما والله الصومالية السلام عليكم. ها هلا واكم مقلايا. وحنا يا دوت كتاع كان جلمذو الحالات دي وقتها لقى ما شاكك حالات جلمذو. galmudug ma tan ka jirta muduga mise tan ka jirta Dhuusamareeb okay welcome anigu haddaan soo galay wili warkeyga ma aan dhameyn kuma tali jirin taleefannada inaan qabto laakiin ku soco waa lagu maqlahayaa dadku waa ku maqlahayaan ku soco
galmudug waa aragtay waxaa cawanaya odayaashii way cawanayaan lama kala harin 11 qabiil odayga way cawanayaan dhammaantood galmudug wax ka socdo waa loo jeedaa wax cadaalad inuu ka jirin dalkan waxaa loo baahan yahay in la badbaadiyo galmudug waxay ku jirtay 30 sano dhibaato ku jirtay aye maanta waa la arkaa in isku haysto xildhibaanadii beesha sacad badankooda way cawadayaan maryaxaanka ayaga badan way cawadayaan dirtii sidoo kale maya kala saar maama waa inaa kala saartaa dadkii sababta waxay tahay dhismihii galmudug hadda wuxuu ka socdaa mudug magaalada la leeyahay gaalkacyo ayay iskugu tageen dadkii wax ka saxeexay magaalada galmudug dadkii saxeexa bixiyey 11 qabiil caawa waxay wada fadhiyaan magaalada gaalkacyo la wada fadhiyaa insha Allah kullayba habeen dambe ama caawa lagu dhawaaqi doonaa dawladda iyo xibnaha waxa dhan marka waxa iiga hadashaa dhuusamareeb waxa ka socda ila dhuusamareeb waa wax oo Xasan Cali Khayre oo wato oo lacag uu ku bixinayo ayaa ka socota marka ku soco waxa ka hadashaa dhuusamareeb wallahi dhuusamareeb wax loo jeedo iska caddahay waaye dhuusamareeb dad waxa iska leedahay xaqi miisaankii galmudug siiba mudug oo kale waa dhul weynta dhul mudug oo dhul weyn ay leedahay lama siinin wax loo jeedo cad waaye صح واognahay inay mudug ay leedahay dhul weyn ay fadhi weyn leedahay oo taariikhda hadii la fiiriyo geographiga laga helayo cida sacad waa cida ugu dagaan weyn oo degto marka beel ahaan iyo qabiil ahaan loola dagaalamaya Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo weerar ku soo qaaday cida sacad waa la ogyahay adduunyahana waa la ogeysiiyay waa la ogyahay taas UN-tuna waa la socotaa marka ku soco hadda waxa xilligan la taagan yahay waxa la isku haystaa xagga baarlamaanka kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa la isku haystaa yaa laga dhigaa mursada laga dhigaa magaciisa waayo sidee loo dhigaa mursada waxa la siiyay xibno badan xildhibaanada kale yihiin maryaxaankan waa loo badiyay وعايزنا أيجن وحلا سيا حتوانه ذكر ولا سيا وعايز وحلا كبح كرسينا وحفريسنا بارمانك وقدومي بارمانك مرسل أيها الفريسينية دي الدولة ما هن سمرت كسعة وابليلقة ماما وابليلقة ولا أجي هاي waxay rabaan inay ay ka dhigaan in baarlamaanka iyo ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka mursada iyo mareexaan waan ognahay marka waxaas dawladnimo lama yiraaho waxa loo jeedaa Xasan Cali Khayre adaa hadalka watee Xasan Cali Khayre waa tii loo yeero Farmaajo uu soo celiyay laakiin wuxuu ka tagay waraaq qoraal ah sida uu u raba dhuusamareeb inay wax uga dhacdo marka anigu caawa halkan waxaan ka sheegayaa waxa dhuusamareeb lagu qabanayo lagu abaabulayo wax ka jira male maayo kuraasta oo xaqa iyo xaquuqda u leeyahay waxaana la rabaa dhulka Soomaaliya galmudug sida loo kala dego iyo qabiilooyinka ugu waaweyn degmada galmudug marka waxay isluhu waa ku xiga oo waa dhul weyn yahay ilaa xeebeedka iyo wuxuu degaa ilaa hoobiyo sokodeeda marka waxa weeyaan waxa dhuusamareeb ka socda waan ognahay asagu wuxuu iska dhigay nin banaanka ka taagan laakiin warqadii oo u dhiibay wiilka Macallin Maxamuud iyo nimanka al-shabaab ayaa wili socda marka ku soco waa la socdaa dhuusamareeb laakiin dawladdu kama socoto dawladdu waa mid ka socota gaalkacyo hadda loo fadhiyo qabiilooyinka ay fadhiyaan waaweynaa waxa loo baahnaa waxa la rabay in musuqmaasuq lala diro galmudug oo la socodsiiyo galmudug oo midaysan baa loo baahan yahay aniga dardaaranka kitaabka jaamaca waxaana dhigay wadankeena maanta Soomaaliya waa aragtay waa kitaabka jaamaca yaa lagu dhaaranin qof walba waxay dhawaana kitaabku iyo beenka sheegin kitaabku waxaana qabanayo waa ayada alla ku qoran yihiin 14% waxaana lagu dhaaranaya waa kitaabka jaamaca nin walba kitaabka jaamaca waa iska saaranaya lacagtiisa iska qaadanaya 15 kiis ama 10 kiis bakee ma aaminsano maama dadkii iyo shacabkii ma aaminsano kitaabka jaamaca nimanka maanta dhuusamareeb ku dhaartay oo faraha foodooda hore saaray kitaabka faraha foodooda hore waa dad aanan aaminsanayn kitaabka jaamaca quraanka dadkii dhuusamareeb la yiri kitaabka gacanta saaro cidiyaha hore saaray waa dad aanan aaminka ku qabin kitaabka jaamaca quraanka wad may ana waxaan aaminsanahay in galmudug oo midaysan waa rabnaa jiilka naga dambeeyo inuu galmudug ku farxo waa rabnaa oday qeelinayo dad cawaadayo lama arki karo waa cayb weyn waxaa loo baahan yahay maanta galmudug oo midaysan
maamul goboleedyada kale way midaysan yihiin. Jubbaland oo kale si nabada ugu dhacay doorashadeeda. Puntland waa aragteen si nabada u dhacay. Galmudug maxaa yaalo oo lagu soo yaacay? maxaa meesha yaalo oo dadkeeda loo diidan yahay in la raadsooco? waa khayraadka dhulka ku jira waaye no waa loogu talagalay inayna galmudug dhismin haye waxaa loo ordayo oo keliya loo jeedo waa mucadahay waa shidaalkaas galmudug 2-3 ceel ku yaalo. 3 ceelna xaq alla ay ka difaacan yihiin markasto dadkeeduna waa diyaarsan yihiin. waa ogahay tan ingiraasi oo macaan aad iyo aad u mahadsan tahay khayr Allah waxaan kusoo gabagabeeyaa xidwaanada waxaan u farayaa fariin muhiim ah. ninka galmudug mideen lahaa waa la yaqaanaa, waa nin dhalinyaro, waa nin diyaarsan, xag walba dhinac uga diyaarsan yahay. ninkaas hadii la doorto galmudug waa midoobaysa insha Allah maamo. yaa waay ninkaad isleedahay adigu waa kalsoonida ku qabta galmudug waa midaynayaa? ninka kalsoonida ku qabo shacabka dhan way jecel yihiin galmudug. waa nin u kala yeelinaynin mudug iyo galgudud u kala saaraynin. waa nin jecel danta guud, waa nin jecel danka shacabka Soomaaliyeed. danihiisa ayuu wuxuu ka hormariyaa danka shacabka galmudug uu ka hormariyaa. waa nin la yaqaan Cabdiraxmaan Odowaa oo kabito waa fahmay ma sha Allah xisbi aan uma taageerayo, qabiil aan uma taageerayo. waa nin dalkii diinta wax u qaban karo maanta. waa arkaynaa insha Allah haddii uu tago magaalada Gaalkacyo yes, laakiin hadduu joogo Dhuusamareeb malayn mahayo in ay wax taageerayaan. barkay waxaan arkayay asoo maanta Facebooka maaragtay ka soo daayay mahad celinahaya dawladda laga dhisay oo la og yahay Dhuusamareeb inayna dawlad ahayn. marka taasaan kuu sheegayaa maamo. wiilkiiba kama bixin caasha wiilaa ku jira sugbal aye Allah galmudug xaliila ayuu mid إن شاء الله إلها مقن ماما thank you very much وكان ملك استعليق سوا وعيا إني تشام اسكون نقدان أنا هذا الكيجي مرة ماينين تلفون ندون ووي السعودان وقت جودي لما جارين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت هيك سو هاد لي كل بونوتشي ده أنا سومالي كسو هاد لي سيده أيه. ما يعطيك عن كوب بلاد وعبد الله جد أرواح عن كلا صاحب يا مجال هذا بسمعه. هايه. لايف كمان كاركيو وعندوني يوم هنا في الجدير كله ولا إلى وذاك قصعه والله مقلها يا شعب كسوماليا دواكم مقلها يعني. حنا ملاينا يا ديقوف Soomaaliya in badan ka warqabtina ay umada Soomaaliyeed ay wax badan ka warqabaan dawladnimada Soomaaliya ee xaaladda iyo heerka ay marayso. Sax. inta badan miqyaaska ugu weyn ee dalleeyahay waxa laga fiiriyaa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho 10 sano ka hor markan saacada gadaal u dhalino waxay noqonaysaa meel muqarriba oo burbursan oo maleeshiya ay ka dhacayso oo rafaadsan. 10 sano marka aan soo dhaqaaqno 2020 ka nimaadana waad arkaysaa xaaladda meel ay marayso. marka waxaan doonayaa mid galmudug hadii aan u laabto waxa uu isbedelayaan dawladnimada Soomaaliya waa socon barada waxa uu qaldamayaan laakiin intii aan dhihi lahayn wax yaraayaan dhisanay aan kala kacay ku diminno xaafna waan garanaynaa oo 2 sano dalka joogay oo galmudug ka arriminayay hadda wax weyn oo qabtay oo muuqdana ma jiro. صح marka waxaan qabaa fikir ahaan adoo iga raaliyaa fikirkayga waaye dawladda wax yar ay noo dhoodhooftay aan nidaamda wad mahadsan tahay laakiin kan iyo kan baa ka dhiman haye kanaysa waa ku fahmay inaad tiri dawladdu waa mahadsan tahay baa tiri laakiin ma adig sheegin dawladdu waxay qabatay 3 sano ama mid power sharing ah iyo awoodaha sida loo qaybsanaya galmudug ma nays habar grid leedahay maaha taas inaan waxaan rabaa inaan ka saxo naanays habar grid leedahay maaha ma garan marka qabiilada kale ee degan xaq bay u leeyihiin inay madaxweyne ku tageen iyo gudoomiye baarlamaan inay helaan xaq bay u leeyihiin waa qasab u leeyihiin yaa u diiday marka adiga hadda dhahay sidan ka hadalkaada ku dhageysanayaba waxay ahayd madaxweyne waxa loo qabaa mariixaan de murashada waa sax xaq bay u leeyihiin xaq ma lahan walaal xaq ma lahano haddii aad ogtahay madaxweynaha madaxa ugu weyn Soomaaliya waa mareexaan soo saas uma ogid galmudug laakiin Soomaaliya ma galmudug waa tahay maama da argumento kale sheegay si tafadal tahay laakiin
dowladdii ka horreysay oo xasan sheekh waxay u siisay 25 taasay ahayd waxaa la siiyey 16 xildhibaan ma fahmaysaan aniga danahaygaba kama aanan hadlin bakay wiilku wuxuu yiri galmudug ma ahan uu yiri Soomaaliya ku yeeno haddayna galmudug Soomaaliya ahayn meeshaan waxba horta mid baa dadka iskaga darsan shalay markii xasan sheekh uu noqday madaxweyne magaalada galmudug dhuusamareeb waxaa joogay jilibka uu ka dhashay oo wacaysla joogay lagama dhigin madaxweyne ku xigeen bal fiiriyaya si kala loo qaybsaday xasan sheekh wuxuu yiri dad aan nin hawiya ahay oo kursiga magaca ugu sareeyay madaxweynenimo aan ku fadhiyo waa in mareexaan maanta lagu qanciyaa inta anigu aan dawlad ahay 15 ayadoonan u banaanayn oo mareexaan xaqowna u lahayn 15 kursi ayaa mursadana waxa la siiyay 13 kursi xasan shalay sharaftiisa uu ka xigay xasan sheekh ما فهمتي marka hadda xasan sheekh ma joogo mana soconayso 16 kursi iyo 13 kursi iyo awad qaybsasho iyo sida loo kala dagay u soconay sida loo kala dhul weyn yahay u soconay maxamed cabdullaahi farmaajo xaqiiqda habar gidin ayaa u badan oo ugu dhul weyn dhulka galmudug asagu yarku wuxuu ku leeyahay qabiilooyin kala daga lama diidano inay dagaan qabiilooyin kale xuquuqdooda iyo xaqooda ku leeyihiin waxa isla xaqo ku tuure waa baaxda labaad ugu weyn galmudug marka xaqo ku tuuray madaxweyne ku xigeenka ama baarlamaanka waxay isla iskale waa hadii xaq laga hadlaayo hadana xaq laga hadlayna de aan isdhabaqsano waa dawladu meeshaan ma jirto waa maafiya is aruursatay oo lacag iyo raadinaysay batrool marka taas aad baan uga xumahay aniga aad uga xumahay sheekada ma aanan wadanin dada isoo dhaxgalay caasha sorry bakee wiil baa ka soo dhaxgalay markay ankay dadka Mareykan jooga aad bay u soo hadlayaan iyo dadka xamar jooga marka waxaan rabaa inaan idin sheego yarka waxba iskaga qaldan dawladdu shalay dadkii doortaan kamid ahaa oo online ka ugu jiray oo shicibka kicinayaan kamid ahay Facebook-gayga ku qoran tahay saan ku daafacay wax kastana taariikhda qorahaya maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu u sameeyay Soomaal hal taako dhulama una dhisin xoolihii shicibka dadka iyo wixii dal ku soo caawinayay iyo shisheeye wuxuu soo dhiibahayay hadday ciidan tahay hadday isbitaal tahay hadday jaamacad yihiin dharo uga baxay dhaqaalo uga baxay dhulala uga gatay mi fahmaysaan marka waxa waa yarka waxba kama dhaadhacna xamar waa bohollo lacagteedii yaa qaatay xasan cali qariye waxa qaatay farmaajo dhuusamareebna xaqay u bixay barkay habar gidiraa degtaa السلام عليكم السلام عليكم ساتاي وافي عنها الحمد لله ولا شيء لا يفهم كجرا كسع مركا ويل با هدا يسو وحي وحو يري دولته wax badan bay qabatay raal thank you aan dhahno ku yeeno waa nin lacag oo siiya farmaajo ninka saas u hadlay barkay nin caadi ma dhihi karo oo muqdisho ku nool iyo boholada aan arkay oo bahala galeenka ya hal wada ka dhisan wiligeeda dhisneed markii aan la dhisay dariiqii oo bilaabay xasan sheekh afgooyatu muqdisho balcatu muqdisho lama dhamaystirin lacagtii asaga iyo ninka oo ma aragtay ra'iisul wasaaraha 50-50 loo kala qaatay marka waxaan al-shabaab baa u heshiiyay barkay dawladdu abaaya al-shabaab bay gacan la leedahay yaa way sirdoonka Soomaaliyeed waa Fahad Yaasiin xagoo ka yimid adduun oo dhan waa lagu ogleeyahay Ingiriiska lagu xiray marka waxa weeyaan dadku waa inay ka hadlaan reality siday tahay laakiin nacnacaan loo baahnayn asoon qabiil fiirinaynin waxa runta inuu ka sheegaa la rabaa wax kasto ku soco walaashay abay salaam alaykum horta waa ku salaama in badan haye ma garatay salaam ha ka qaadan ahaantii markaan ku waramo horta oo intaan horta orgiga ka weyn sax wadankan waxa haysto waa calaamatu zaman aakhir yes من سكن بادية جاف رسولك عليه الصلاة والسلام dad أعرابيين هايين وما أنت ميجا كنوا لايين وحولها يا هبادو كسو أوريسا أنتي كل قد وضعوا فين تهريب كوبحاني سودت صاحر حرتين وحزبين ودنكي مادين ممبر دولدين أي شيغانا يعني مكتت صح مركا وحوا هورتا نسيب ترى أنها يستطوعيتا صح mudug ayaa la ahay
abaaye bal codkii hoos u dhacay aan ku soo qabtay sugbal هيا أنا كوكسو علينا هي نين الكانها واشو أفريقيا كسو هرلايا هي السلام عليكم السلام عليكم والله الله حقيت هرليسا مقدشو عابد واق ويلكم ولا الكي معان أيوة ولا الله يبدي ولا قال يبدي لازم كده ورواني جاي هذا أنقلاب يا كودة أيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله إنه حتى ليس دولة يا رمادة يو سيدي كلمة وهو المرنا ها مركا كلمة بين مدينة وعن كل ترى ألو واكو مقلا والو لا سocdaaya hadal abo waa lagu maqlayaa Facebook qal galmadu Malaysia waxa lagu heli karaa qofku markuu asagu dawladda waa isla kii ogaadaya gabar baan leenka ka tuuray anigu ma aanan dhamaysan mana rabin inaan qabto hadeertaan maxaa la yiraahaa telefono laakiin gabadhan baan ka adlisiinaya telefonadana waa yiri joojinaya xoogaa marka raalli ahaada haddii kale hadalkaygu dhammaan maayo mana la ismaqlahayo sababtaan u soo galay dawladda ku yeelay dawladba ma jirta waa maxay dawladdu sheegayo ها بايو ku soco raalli ohow nin baa ka soo hadlayo yiri caabud waaq baan ka soo hadlayaa malay maqlaa hadda waa lagu maqlayaa ku soco walaashay waxaan kaaga warramayaa abaayo awrtii baa caloosha laga raray haye galti dhammaantiis intay dhoofeen suudad qaateen kabii baalisteen yes suuq bal walaali macaani ninkaan rabaa inaan blogs ka saaro mir dhow haye marka badow ayaa maanta meel walbaba taagan reebaadiyo dhan baa maanta dawladda xukumaaya freedom speech-kaaga inuu balokaaday badow waa isku dayay soo waa ogahay badow le waayo waxa samayn kara moogta haye ku soco hadda ka hora waxay tiri islaan jirto oo xogaa madaxa ya waxay tiri beledka miyay ka bukeen babaygaan cunayna miyay ka bukeen banoonigaan dheer miyay ka bukeen badow baarakula ah waxba u joojin hana dhegaysanin hadalka nuxurkiisa inaan gundhigiisa inaan tago sax walaala macaanta thank you haye degan galmudug waa la yaqaanaa I know gartay maaha wagardhac loo boge wagardhac iyo loo boge iyo beesha habargid ma garatay sax ku soco nin halkaana inaan blog saaran rabaa mar dhow haye habalooga waxaa la rabaa inay maya abaayo dee telefonku is enough ninkaan nin istaagaayo maahan dawlad asaa loo yahay ani la ima ahane moogtahay dawlad shicibkeedii la xadayo yaa dawlad xaqeedii masaakiintii naagtii yaanyada gadaysay kii gaari gacanka waday lacagihii laga qaado canshuurta aad dawlad ku fataalaysa oo maalinba jaakada xiranaysa oo maalinba kaba cusub intay kuu soo aragto muusika iyo gabdha u heesa iyo baarti ka wada dhiganahaya waa noloshooda waxayna soo marin maxamed cabdullaahi farmaajo reer america waa wada taqaanaan iyo taximan dawladnimo waxba kama oga ninkaanu noloshiisana siyaasadana ma yaqaano waa nin siyaasadda ka dhintay oo dawlado carbeed oo khadar la yidhaaho dabada ku xirtay ku soco abaayo ninkaanan blog saarayaa ii kaadi marka ninka maxaaba halowa ninkaanabana dhibayba meeshiiba kama baxaayo برنامجka inuu iga waxeeyo telefoon kale oo aan qornaynaan hadda keenayaa adiga soo wici doontaa ku hadal aniga wax ku hayaa haye ummadii Soomaaliya farmatays waxa la dhahayaa ku dhacay caasho ay bal sugbal muxuu rabaa sugbal caash
هاي كوسعو medical ama caafimaad ahaan ummadda horta ma caafimaad qabta waa jiran yihiin ummadda Soomaaliyeed naanin bay wareeriyay bal xamar isug bal caashoy هاي تليفونك كلام كاسو وعيا هي باي هلا والله كنت شيء ما عاد war waxaan ku yiri maxay tahay problemka adiga maanta ku haya oo halkaan aad uga soo hadlaysaa hadaadan wax fiican ku hadlaynin walaalo waxaan kula soo hadlayaa maya qof aniga been sheegaya in ma soo wici karo qof og inay muqdisho bohol tahay galmudug lacag lagu kala dilay galmudug oo dhisan la baadiiyay ma ii keeni karo dawladda wanaageeda ما يكيني كرو دولة كوربشنا ولا جيدا ما كيني كرو ماشان galmudug lama kala tagin galmudug waa dhisan tahay intee ka dhisan tahay bal noo sheeg aan ku maqalne dhuusamareeb may ka dhisan tahay waxay ka dhisan tahay caasimada galmudug waa dhuusamareeb ma aha nomo fiiri waxba ka qaldan marka waa kaas waa waxaan ku sheegayo dhuusamareeb waxa la keenay al-shabaab iyo wadaniyiintii oo qortay maxamed cabdullaahi farmaajo ninka darawalka uu ah xasan cali khayre waxa la siiyay kursi waan hayaa waraaqii uu ka tagay xasan cali khayre wuxuu yiri saas lagu waday hal shaqeeyo rag nolosha ka wada dhacay oo calooshood u shaqaystayaal oo lacag la siiyay ayaa dhuusamareeb jooga walaalo marka wax kale ay sheegin waa maadsan tahay walaalkay dawladu kama jirta galmudug fiiri war waxaan ku yiri war caadi wuxuu sameeyaan arka xamaran hadda ka imid anigu maxamed cabdullaahi farmaajo waa dilaa al-shabaab gacan la leh maxay tahay waxa sheegaysid marka ma waxa indhayga ku soo arkay oo ciidamadii kaliyaha lagala baxay oo kuwii la qarxiye kaliyaha laga gurtay oo qabiil ahaan loo qaadi waayey maxay qabteen lacagtii waddanka iyo lacagihii maraykan laga soo aruuriyey oo hiiraan loogu talagalay jeebkay gashadeen xasan cali khayre waa tuug anoo ingiriiska ila deganaa ma waadan ogeyn adiga qofkaa la hadlaysid aqligii xaaf baa ila leedaa walaale aqligii haye iskaga bax marka aqligii xaaf baan ku socdaaye corruption baa tahay lacagaad soo cuntay iskaga bax walaale macaano caasha ku soco waa bloga haddaan bloga isug raalli ahaada adinkuna ya waaba nin jiran ba ninkuye waa nin lacag soo qaatay ninka hadlaayo waxaan aragnay cajaladaha dadkii aan la hadlaynaa dhuusamareeb nimanka xabadaha halkaas laga saaraan la hadlay oo yidhaaheen adeer saas baa nala yeelay oo waxa lagu leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim dhibaatada jirta dowladda weligaa haddaad maqashid qof ku dhahayo dowladdan waa qof caada qaataa oo lacagta dowladda shicibka lacagtoodii cunay yacni shuurtoodii iyo tii adduun weynaha iyo tii ciidanka dadka afka wada marsaday waa dowlad tuugaa wuxuu ku leeyahay dowlad نعلة الله عليك ده كسع عاشو واكو مغلايا عاشو ما وجوجين ايه نلعقاته واي نينكا سو هادلاي نلعق لسيه واي او بابييه dhuusamareeb dhex taagan nin dhuusamareeb dhex jooga oo dadkii xabad dhinac madaxa uga haya weeyaan dadkaasu laakiin ballan ilaahay waxaan ku qaaday inaan wada geeyo cajaladaha oo inta ka wada daadanaysa dadka inaan United Nations-ka aan dhigo xuquuq bil-aadankana aan dhigo farmaajo waa tuug haddaanan waddanka laga qabanna dadkiiba baabi'inahaya xamar waa bahalla cuneynay noqotay isbaaray wada dhigteen la isku mari karo balcad xamar balcad inaad hiiraan aado 10 isbaaraa la dhigtay ciidamada meesha la keensadana waa qabiil oo muqdisho daadsan kuwii kalena afgooyaa lagu qarxiyey waa dawlad tuuga ah oo inay wax aruursato u timid caasha ku soco markaa baayo laynka waa lagu jiraa laymanka alla kala sugo laymanka alla kala sugo halo ku soco caasho
waxaan kuu sheegaa horta ummadda soomaaliyeed ilaahay waxaan u weydiinayaa kulligood caafimaad allah keeno صح kan soomaaliya joogana trauma ahay soomaalibaba jug buu ka daalay shacabka soomaaliyeed wax u turaayo ma lahan kan qurbaha joogane kulligood waxa waaye depression iyo anxious waaye macnaha wadankooda u xiisa qabaan صح best or west your home is the best meel kastoo aad joogto gurigaaga meel ka fiican ama wadankaaga ma jiro dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa citizenship yacni dhalashada wadankaaga meel ka fiican ma leh ilaahay waa noo doora dadka ugu quruxda badan leh ugu dheefta badan leh ugu dhaqaalaha badan leh waxaan haysta oo hadda dadkan ku hardinayo dhan waa dad jecel cadaalad darro inay ku noolaadaan inta cadaaladda weysayaa badan inta masaakiintaha badan inta dhibaatadu ay taabanaysaa badan marka aan usoo noqon muqdisho haye haye waxaa degan qubays waxaa degan wagardhac waxaa degan mursade waxaa degan duduble waxaa degan abarkidib waxaa degan qubays ma fahantay ma fahantay marka iyo sufa oo qabiil yani camal u istaagto kaligeed rabta inay dhaqaalaha ugu badan qaadato iyo xubnaha oo ayadana aan dhihi karna waa mushakal waxaa la yidhaahdaa yani ninkay soo wacaya waxaa la yidhaha cabdi geesay jimcaale haddowna daynin taleefonkayga oo marka la soo galo daboodan ka dhigahaya waa dadka dhiigyacabka ah oo dadka dilay weeyaan saas ku ogow hanaga qasina hadalkee soo wactama iska daa please don't blog your program okay ha joojinin adiga maxaa uga joojinaysaa adi hore u soco waqtigii waa la yaqaanaa ma fahante dadka kabahan ku saxa aqoonin oo buudka aan xiran aqoonin oo suudka ku cusub iyo hudayda ku socda hala sheekaysan please ina disturb mental kugu ridi muhiimadaadaa ka weyn صح soo wax garatay maaha hadda aniga kelmadahaaga waxaan ka dhegaystay in wacaysle minority looga dhiga dhulsamareeb anaa runta kuu sheegaa sagaala nin sagaaro gaadin jire baa waxaa ka carar waxaad iga sagaaraba ma cuno sagaara waxaad igala cararaysa ma labada adinoo dambaa hoyriya oo yaa ku warrama inaanaan ku cuninba annaga inaanaan bareebin galmudug wax la dhahaayo oo annaga aan nahay reer mudug maba ogaba ma oga waa ciyaal yaryar waayo abaayo annaga uma taagninba waxaas oo laba quursi diidaa la yidhi quursina ma qaataan syl dadka ku jira waaye waxa loo dig ii dam leeyahayna waa dhulka khayraad kale soomaalida deex iyo doy bay yihiin tuugays aruursatay waa dowladda sacadku waa deex somaliland maaragtay berberaawiga waa deex dadka puntland ee deexda degan ilaa kismaayo dadkaas nashibilitaasi arriibana dalmaare ilbaxnimada sideeda badday ka timaadaa ilbaxnimadu haahey reer badeedka la sheekaysanaa doyga dadka degan dadka dhibaatadu ay haysato dadka oonka iyo dhibaatada abaar hadday dhacdo abaartii daba dheer kulligood koonfuraa loo raray markii laga reebo dadka oonka haysta waad ogtahay nooma soo beentay may waa sax abaartii daba dheera koonfur ugu horreysa dadka koonfurta hadda jooga abaartii daba dheeraa la geeyey صح abaartii daba dheer dadka xeebaha degan lama qaadin abaarna kuma dhicin kalluunkooda ay cunaayeen صح marka historyga waa qoran yahay dadkan xanaaqsanna masaakiinta iimaanka allah u sugo amiin mayd ma joogo soo waxa garatay maahan waxa waaye wuxuu yidhi ninkii ku quweeyey oo qayb rageed ku baray ya miya lala qaysadaa khaa'is baa tahay maya ma fahamtay ninkii ku quweeyey oo qayb rageed ku baray miya lala qaysama qaa'is baa tahay miya lala qaylaya qaa'is baa tahay marka waxaan ku sheegaya waddankan waxa ka jira waxa kaliyo dejin kara waa dadka reer badeedka oo ilbaxda ah dadkaas ha lagala sheekaysto dadkan haamaanka ah oo nolosha aan weligood arag oo abaartii daba dheer maangaha ugu horreeyey dadkan dhibaatada ku soo koray dadkan xoolaha hadday ka dhammaadaan صح iibsanayaan هاي عاشة سوكو بابايو
marka waa idin salaama kulligiin سلام الله يا باي dadkaas anaga wax nagu leh يعني oo noo yimid oo quwadda ugu weyn oo gaalkacyo joogto waa madaxweyntii يا باي هاي wax garatay oo maaragtay galaal uu weeyaa generaalka waa joogaa galaal waa joogaa gaalkacyo joogaa marka intii muhiimka ahayd way joogtaa intii hadda la sabtayna waxa waa lacag dhamaanay culi abaar هيا باي thank you والله عاش وين يا وادي ودقا اسمنا ويل أبقال أخوستينا يعني قوتنا دايان هاي ولا اسكرنا يا هاي اوكي سجوق الاسم الثاني هاي فردا الاسم الثاني بنتا ما هاي بنتا ما والله بالله فردا سلجوق هاي هيا باي معانت واكو سلامي ثانك يو عاشا معانتا باي 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 دارلين ان waxaan idin sheegayaa in Soomaali Maxamedey in madaxweynaha markay hadalka ay waday madaxweynuhu wuxuu aaday markay asaga iyo Fahad Yaasiin isku dhaceen ya assalaamu calaykum ya waay yaan la hadlaynaa Colombia kula hadlaya Fahad Maxamed iska waran fiican tahay alxamdulillah walaalkay macaano meeshaan live aan ku jiraa live ka laga maqlayaa wixii marka haddaad arrin ka geysan kartid qaskii oo qayra dhex dhigay reer galmudug oo niman la yaqaano caana oo mudulooda soddon kun la siiyey oo dollar oo galmudug lagu tawaxeeyey oo mareexaan wuxuu siiyey 16 kursi ay xaq u lahayn ay ka degaan hal boos oo waliba aan naqaano wagardhaca kaliya ay degaan aad bay agteeda sharaf uga mudan wagardhac halkaas ay iga saaran yihiin ilaahayna hayna xugmeey waa xigmaysantiina cid mursadana waxa la siiyey 13 kursi miya mise 14 kursi 14 kursi ha laakiin waxba kama jiraano dhuusamareeb waa lagaga cararay intii wax garadka ahayd intii oday ahayd intii odayaashii saxiixa sameeyay galmudug lagu dagaayay gaalkacyay joogaan caawaana lagu dhawaaqayaa dawladda horta aashaga ku warame adaa ku haystee nin Colombia horta kula hadlaya ku warame horta ahaantii kufsi baa ka dhacay galmudug kufsi baa horta ahaantii ka dhacay sax oo maanta weyn ognahay maanta galmudug may mudnayn in sidaa laga yeelo oo in la dhibaateeyo halka kaliya maanta lagu loolamayo la doonaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo baxdo waxa weeyaan waa galmudug halkii maanta doonaysa ku loolamaysa political state ugu muhiimsan ee culayska ay saaraysaa maadaama aanay ahayn Jubaland iyo aanay ahayn Puntland labadaba waxa ay culays saaraysaa oo Hirshabeelle iyo ay koonfur galbeed ay gacanta ku haystaan waxa kaliya ay maanta culayska doonaysaa inay saarto waa galmudug waxa soo kharashana loogu bixinayaa ahaantii waxa weeyaan waa sidii ay ugu soo bixi lahaayeen baa ay doonayaan maanta waa la og yahay dawlad maaha waa dawlad horta dawlad waxa loo yahay markay xaqiiqiyan horta ka hadlayo horta anu ma yihiin waxaa nin reer Somaliland lahay Somaliland ka soo jeedaan lahay ma sha Allah dadkay jaataay horta ka waramayno muqdisho markaynu tagno horta dhibaatada maanta muqdisho taala lama qiyaasi karayo walaalo dhibba maanta taala waynu ognahay hooyada ku silacsana ku balabalaysa awlaadda jeedkii maanta ku goblamay maalin walba asada qaadaya caruurta la leeyahay تعلمي وبحي لبيتي دالك إن مع والبا لغو حسوقي مقالي مقدشة وتماتي وينو نهاية حقيقيا وعندنا لو شيء ما يوحد كان عرضة واحد ليدي ما بعطي على Soomaaliya gudin yahay maad ku siin hadaan barkii ku jirin bay Soomaalidu ku maamaada kale toolaad ma la doonayo in yani muqdisho laga dhigo ama la xasiliyo wala xasilin karaya laakiin qaraar u qaadin ma rabo oo dana siyaasadeed baa intii ku jira halka kaliya dawlad loo yahay laba meelood baa dawlad loo yahay marka xaqiiqiya aynu qaadano dawladda federaalku Jubaland kama taliso Puntland kama taliso halka dawlad loo yahay waa Hirshabeelle iyo koonfur galbeed baa loo yahay galmudug hadda xoog la rabo Afrika xaqiiqiya doonayno kale alankii Soomaaliyada ma dawladda Soomaaliyada waxa maanta yani loogu agajuleeyaa lagu gumaada shacabka labada deegaanka soo jeeda baa runtii lagu abartaaglaya waxna loogu yahay dhaqaalaha laga qaado islaamta tamandada iibinaysa si muqdisho dariiqada maanta ay ka xireen cashuurta laga qaadaba lagu loolamaayo horta runtii lagu burburinaya
galmudugna lagu burburinayaa meelaha kalena lagu burburiyaa loola siyaasadeed lagu isticmaalaya ahaantii marka waxaa loo baahan yahay horta maanta talaagu baa loo baahan yahay horta maan filanayn in galmudug sidaa laga yeelo waxaan islahaa galmudug waa halka ugu adag maanta haddii galmudug la qalo oo la gowracana waxaad ogaataan doorashada baarlamaanka doorashada soo socota madaxtinimada dalkana waxaad ogaataa inay taas ma ay ku soconayso oo wadadii laydinku eegi waa furihii laydinku eegi lahaa weeyaan maanta tani haddii gasho oo ay idinku socoto waxaad ogaataan in ay doorashada dambana ay saa qartaran ahaantii ay noqonayso laakiin maanta gurmad bay u baahan tahay horena waan u sheegay galmudug hiir bay u baahan tahay gurmad bay u baahan tahay cid kastoo degan aniga qabaa iyaga oo aad ku dhaway Soomaalidu tidhaahda iyaga isku dalaa iyaga isku deegaana maanta waxa loo baahan yahay qabiil kasta oo degan ciday doonaan baa ahaadeen inay aayahooda mustaqbalkooda iyo noloshooda inay ka tashadaan baa maanta looga baahan yahay kuwa muqdisho jooga iyaga iskaga dhow khayra iyo farmaajo kuwa maanta galmudug dega wada degan ee isku oode midixka iyo dabka kala qaadanaya maanta dad isugu dhow qabiilka doonaan baa ahaadeen maanta waxa looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo aayahooda halka u dan ah inay ka tashadaan baa maanta loo baahan yahay laakiin ma aha maanta may mudnayn in shacabkii reer galmudug ee xadaariyiinta ah in maanta heerka yani kubad noocaas loo soo dhigo la ciyaaro runtii waa u nasiib leeyahay leeyahay galmudug kufsi baa ku dhacay war mar labaad yaa idin kufsan horaa laydin kufsaday ka kacaalaya insha allah thank you walaalkeeyo thank you fadhiga kasra kacaalaya insha allah waxaan soo rajeynayaa muqdisho hadda u dhibaatada in ilaahay nabadgelyo siiyo adawga ashraab ما والله سكقبنا ولا سكقبنا iyaga raad qabta leeyahay galmudugna Allah yidhi baa leeyahay Soomaaliya ma kasto joogtaan qabiil kasto oo Soomaaliya waxaan ka codsanaa in galmudug maanta yeelko baadkay Allah yidhi shacabka reer galmudug sidii noloshooda loo badbaadin lahaa ciidamada duldhigay ama Soomaaliya u fadhida doonaya sidii muqdisho maanta in laga dhigaa la doonaya galmudug maanta heel bay u baahan tahay isu dhacbeela laga abaabulaya dhibaato fara badan laga abaabulaya war maanta deegaanka loo gudbaa leeyahay thank you very much thank you walaalo macaan thank you walaalo thank you okay waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan rabaa inaan inii sheego oo xoogaa taleefanka aan gaabiyo barkee hadalkayga ma wadan karo taleefanaduna waa igu badanayaan waxaan inii sheegayaa marka sheekadan inii waday waa runtiisoo galmudug waa la kufsaday dad baa lacag ku qaatay lacag baa lagu cunay wasiirka arrimaha gudaha iyo warqadda markii loo dhiibahayo wiilka macallin maxamuud iyo qayre wuxuu rabaa indhaha UN-ta inuu iska ilaaliyo oo la yidhaaho qayre ma joogo ciidamaa la geeyay Ethiopiana bistoolad baa madaxa looga wada hayaa Dhuusamareeb faraha waxa la yiri saare kitaabkii waa inay dhaarinayaan markaas ciidiyaha saareen marka wax dawlad la yiraahdo galmudug ma joogto Dhuusamareeb waxa lagu haystaa afgambi yaa ka dambeeyay waxaas uu sameeyay waxa sameeyay macallin maxamuud iyo sheekh shaakir maanta dhibaatada Dhuusamareeb dadkii u yimid oo martida ugu yimid dhibka ku dhacay ayaa ka keenay sunna wal jamaaco marka meeshaanu waa dawlad ma ahan dadkaanu waa dawlad maafiya oo tuuga ah oo iskaashatay oo raadinaya inay patrol dhil ka sameeyaan iyo shati waxay u maleeyaan Dhuusamareeb inay tahay galmudug oo dhan waxaynan ogeyn waa la degaa juqraafi ahaan la fiiriyaa dad baa iska leh cidda saacada u cunay ninka ma maqlaysa wuxuu yiri afkii xaafay ku hadlaysa ila waa nin caada qaataa waa la yaqaanaa waa rufyaankii xasan cali qayre waxa la geeyay galmudug waxa la yiri ka naagay waa dadka shicibka dila oo xabadaha wata waay masawirkiisana waa hayaa waa ka qaaday already meesha markuu soo wacay waana in soo tusi doona insha Allah programka ku xiga ayaan masawirkiisana in soo babac dhigaya ninka aytamayay waa nin maaragtay dadka qaraxyada Soomaaliya dhigana ka dambeeya waana dadkii injineeryari soo dilay waa dadkii villa Soomaaliya markuu ka soo baxay ninka dhabarka dambe ka toogtay dawladdaanu wax ay qabatay oo hal mitir ma jirto lacagii la yiri qadar baa laga soo qaaday lacagaha qadar laga soo qaado waxa lagu dhameeyaa shicibka Soomaaliyeed aan inii sheego shicibka Soomaaliyeed baa looga takhalusaa qadar waxay tiri qarax iyo bambaha laga buuxiyo dawladdana waxay rabtaa inay tiraaho wadankiiba qarax uu noqday qabiil iyo gobol iyo ficil ma la yiraahaa wax isku hooseeya afka la isku wada galiyay maxaa ku cad marka ninkaanu xalay asaga iyo Fahad Yaasiin
waa la isku dhacay ilaahay waxaan ka baryay inaa isku dhacdaan istoogataan waa la isku dhacayaan ku leeyahay markii la isku dhaco la kala qabtay Fahad Yaasin wuxuu yiri madaxweyne qadar ha aadin diyaaradii wuxuu ka dhigtay raaxo xasan sheekh oo ku caayi jiray 10keedii asaa ka hormaray xasan sheekh qadar ma aaday sida la yiri qadar waa soo hadashay ka tag qolada la leeyahay imaaraad waxa la soo dhiibay 52,000 oo lacaga bilyan la soo dhiibay oo la yiri farmaajo qaado annaka nugu soo xiro ninka la leeyahay la tareey waxa la rabaa in qadar farinka looga boodo Fahad Yaasin lacago ka soo qaada jawaan lacaga intuu geyn jiray yuusiya lacagii qadar laga soo qaaday ila qadar Soomaaliya kuma sheegato $10 laakiin maafiyada wadanka haysata Xasan Cali Khayre Fahad Yaasin محمد عبد الله فرماجو يحاسك مدحوينه أيضا جوني ذو إن ماركتي وسودان يا لقى صويع إن بكي لايف يوم كجرا وليه مركب حيني شيء جاي ماشي الدولة دو متشرتو وسمرة وحكنا عينا وأفدوب والله قلت تلاقي لي أفجندس مركب رجي شرفته يمجع علىها أو صحيح ياشها أو كدم بيه اسمها الرجل مدو كل واحد شوغان مقالة ده قال كعيو قلبتها لي صوعي وحي صوع ذي الشيقال وحي صوعي مريحان وأنا هي عجلة مريحان كليين ومع مسوردو دسارين وحي صوعي در وحي صوع ذي مرصدو أنا كلا أقولين شلبيه ذا مرصدان واقعنا وضدير مركز واحد السياسة دحيت أفريقيا طبعا كرس مرصد تو جينا يا سدح كرساكو فلان وأنا قلنا تشوفوني كمرصد إلا كوان هبرير وهكذا شيء بيجي شيء كرتادو يا أياك أنا لبنا نفاتكم مرتقادي كرتا عين يا جماعة إلهي نبي محمد أنا عين كل شعب مركل يسكو كانوا وحنا هذا دل يران سيفر عن تور دل يران قربان لو قلنا لا وحنا يمركي أنكسر ما عرفت دجان هان مركل فيريو أدب ويريه دجان كود وسيلة دودبله كلاته وسيلة دجان البورة وسيلة دجان مفهم إنسان دودبله ما قاقلين أيو ما أنتي رجي محل ده أو دودبله وحيد شوغان مقالة قال كعيه شوغان بل كو يتوان قبيل أولا وذا يقانو أو رقم مقعيان لإكو ذا جرام كو يتوان كقبيل أيا قال كعيه شوغان معكو عد مركا نوصا مريب إلي أفدوب تاي أو دادكي الأفدوب تاي أو حبضا لغو هايو أولا ليه وريا أذيك أساس ما تاي صحيح ما إهد ها انت صحيح وريا بح أذيك لغو مرة هبل كالي قال بل رحوين ما وحي دكتاق المدك وامايا كرسي لسي كان بابور كأوضا حس علي غيره كرسي لسي نن إثيوبيا جوجا كرسي بالسي marka inayna kuraasta u samareeb ayna macna lahayn oo xasan cali khayr wuxuu ugu tala galay cid degta galmudug special habar gidirta oo ugu dhul weyn in horta afka la isku geliyo ayrna dhaxdooda la iska cunsiyo jilib la isku cunsiyo saleebaan jilib la isku cunsiyo saruur sidoo kale ila waatay qoriyo isku dhiibeen dad xasuusataan saruur iyo maxaa la yiraahdaa ayr oo xamar ay ka dhacaayeen xabadu Soomaaliya ogeyn 3 bari maxamed cabdullaahi farmaajo lacag ku bixiyay bal horta qaska ka jira iga qabta adinka oo ayaan dhaway tal dhax galo odayaal u tageen oo leeyir maxaad isku haysataan waa la qarxiyay dawladda lacagna siisaa leeyir bal ilaahan in ku dhaarshay dawladdu ma weyna dawlad maafiya ahayn saacadkii ba jilib la rabaa in la isku diro waxa la rabaa dudublihii in la iska hor keeno mursadii waa aragteen waa la iska hor keenay abgaalkii oo waxay isla ragba waxay qaateen 30 kun ninna 1 milyan baa la siiyay magaciisa sheeg maayo ninka 1 milyan qaatay nin baa 1 milyan qaatay ma fahmaysaa oo la yaqaano caana laakiin biris waxaan ka sheekeynayaa kaasna en kuwa kala 30 kun la siiyay magacyadooda ma sheegayo laakiin waa caan waana is yaqaanaan waana arki doontaan waa kuwii soo hadla oo soo gala Facebook gay marka waxa inii sheegaya dawladu ma tii wax dhistaa mise waa tan wax boobta oo afduub dadka inay ku qabatay ay rabto ma waxay u maleeyeen 1969 ka inaan joogno war maxamed siyaad barramo oo qabsan Soomaaliya ma dadku ma xoolaa war niman isaaqa oo gruuba oo ciidama iyo nin abgaalay iyo niman badan oo hawiyaha u soo qabta u keena asoo xafiis iska fadhiya waxa la yiri waa kula jeclaana kursigan ma una dagaalamin wadankana waa la dejiyay xamarna waa yareed mi fahmaysan ciidamayo tawabaray qabiilka hawiyo wuxuu wada diray raash wuxuu wada diray maxaa la yiraahaa Itaaliya wuxuu ka dhigay saraakiil wada sarsare ninku wadanka waa dhisay markuu shilka galay ayay waaleen waa waxa hadda farmaajo haysta laakiin farmaajo horta iyo xasan cali khayr waa walaalo bakay waa ilma farmaajo moogtaa ninka la leeyahay xasan cali khayr dad adunka ogeey
حسن علي قيرة واحد دالي ريال ديقنا مانتي كقادة تيست DNA كقادة محمد سياد براد دالي وعيالكي كلها شوارفنا هو يديس وحي أنجرته قول وضع إن عذيرتي هالكاسان كاسلامي وينو أكتاي لكن ليت بو مقعو صباحي إن عذيري إن مرة كنا واقضي إدنو ويلك محمد سياد براها إن محاي يقول نم ولق استمجري جري وحاد اللي يراهو واد وقيدين وحو قلمدو كسمي حافل دبرك جبينay naayay saa waxa la watay ninkii la dhahaayay ii sheeg isbageeti dhameena maxay baasta ma waa ii soo qora mid baa la watay baasta in la dhahan u maleynayay isbageeti wuxuu ahaa ma qaana ninkaas la watay waxa la geystay cadaada marka dawladu ma waxbay dhistaa mise waxbay baabi'isaa taas la isku haystaa farmaajo adduunweynaha u soo gurmaday maalintuu madaxweyne noqday lacag xoog leh waa la siiyay European kuna way siiyeen Mareykankana waa loo soo diray waa loo soo qaaraamay waxa la yiri wadanka dhis isbitaal ka dhis waxaad ka dhistaaya la yiri jaamacadii soo celi warshadii Soomaaliya si ay dadku shaqo u helaan ardada free uga dhig waxooda u soo celi warshadiina dhismay ku soo celi yaalin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre jeebabkay ku shubteen iyo Fahad Yaasiin taas maxaa sii dheer ma taqaanaa lacagaha ciidamada la siiyo Soomaaliyeed oo qoran jeebabka lagu shubtay bishaan hadii $100 la siiyo 3 bilood lacag la siin maayo marka nimanku niman baahan bay ahaayeen wadankana dawladu kama jirto dawladu waa dawladii wax dhista dadkan la doorto is doorto ayaku iskeensaday xasan ninka la leeyahay Xasan Cali Khayre on aragna wuxuu Soomaaliya ku sameeyay ayaa wuxuu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya kii aan u soo calacalnon soo saarnay waan aragnay ruway inuu noqday Farmaajo laakiin Xasan Cali Khayre ka tarbiilo korka ka mariyay Soomaalidii oo dhan وصحيحين مد كليها لقلا بحو مد بيرك لقلا بحو مئيش يجي كرتان قدر العقب يبت أي تري طريقة هلا يسكحروا أفكوي يحمر العقد عاو 100 مليون إيه شاف كي كشفتان الشباب على بقي برلسية لبقي برنا أيك على جوستي وحل يري مركم كصاوعه قرحي الشاو قرح يادقة ور يحرق إن كل شيء قرح الصومالية يادقة سردون كصومالية أياك دمبيه يا حق odayga aftiga uu Farmaajo markiiba waa imaanaya geedkii qarxay hore laga qaadaya marka dawlad ma ahan halay hamar waxay noqotay bandow guryahan goodi jira absi dawlad laga cabsanayo maya dadka muqdisho jooga waxay dhowrahayaan war waxaan ayakaaba socdo waxaan micno lahayn u hartay faraha ka qaada marka hadda hurdada maxaa looga kacay Xasan Cali Khayre wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo gabarha soo hadlayso السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان السعودية قطر وأدنى كوسو دوينايا thank you وشان ورؤسي صرف إن شاء الله ويمكن هذا السي هديات يلعب في عواي وكولومبيا ما شاء الله marka markii khafaf dibay marka waan nin xamar ka soo baxayo dhahay dawladda ha dhibin markii wax aan diidon block saarena wuxuu soo qoray afki xaafay ku hadlaysaa yaa u sheega waxaan sameeytaa alla ilaahay iyo rabbi iyo raxma dad isma yaqaanaan WhatsApp kale block saar WhatsApp ha maya ma soo galaayaba wuxuu ka soo galaa wuxuu ii soo wacdo meesha miyaalaan nin ha siyaasi ma ahan هذا الفعل ما يقانه وأن دولة دودة هي وسود مدو لو قليي وتلفون كعنت كويس ونولش يسوي كويس الله مركز كان نوع عسى وودنيين تبويان وعيال عاد قادتها ومساكين واي مركز وعلمه محمد عبد الله فرماجو هاي يا حسن على خير محمد فرماجو يا حسن على خير مركز ترين كسيم واي وسوشيال ميديا لعنا كسيو ها مركز وحوال بلوغ صار أباي واتساب كيسا يا بلوغ لسه صار لكن فيسبوك بلوغ غيري واتساب كله كحرو واتساب كحر بلوغ صار مركز أدبك وسلامة يا ما سوشيال ميديا أدبكيرين هاي ليش بيحان وقايلين السوق ليش محلها بالحق قبيل كله قايلين هاي وجيجينتي وجيجينتي بيش محلها إيش وحان أركي بيش شيغال لو بقى شيغاش ما لو بقى وقايلين هاي كراستو دي أما كان شيغاشا وكوا مدق دقة marka waxaan aragtay maanta social media aad buu u socdaa marka waxa waaye xildhibaanadan iyo waxaan la soo xirana waa wax waxaa la soo qorane waa wax madaxweyne Farmaajo
يا رئيس الوزراء حتى على كتب في واحد أيه وكان واحد نمرين كده أما نمرين نمرين نحدين نمرين نحدين gabar inaxti wata ma shaqaynayso farmaajo soo laabo maayo darunta ku sheego Soomaaliya dhibaato u geystay damage badan oo gaarsiiyay asaga ninka ra'iisul wasaare xasan cali khayre labadooda soo laabanaay wallahi wiil halkaana wuxuu soo qorayaa oo yiri qoomka magaalada Muqdisho joogo oo yiri farmaajo iyo xasan cali khayre oo dadka ku dhibaataynaya magaalada Muqdisho oo ku tumanaya hadaan laga qaban ilaaha u maqanaa liir waa dhamaad kuwaas oo ka waran dawladda mar labaad ku soo noqdo waxaan u malaynayaa dadka waxay ka dhigan lahaayeen isbuunyo ay korkooda ku socdaan meeshay darajo isgaarsiin lahaayeen bal nimankaas ay waa ku socdaan marka waxaan ku sheegto soo laabasho maarkino batariidada hadishanin inuu soo laabto maxamed farmaajo يعني كحسن على طيب ما صار ولا because أكو شيء قاعد يصير أكتر من تجارة كده التريل وكده التريل هو إنه إيدهم كيسلو وده كأسكبس كقبصة مركا أنا وحنا شيء قاعد فرماجو أغير كان محمد سياد بري نحرسته وفنا قاعد نسوي لك سلام نحرسته الله نحرسته وحبضنا وساقة تنينكاس سياد بري محمد سياد بري هو بهستو وعيدن هستو وتكنيك هستو زيارة هستو أيا وده كلاتني كوس نقدر كوبات إناي إلا واحد صار بلا ضعوبيو إلا فيش مجرد كوارتو بيجي أباي سوق عبي دت كلا كجري الله إنك هاي مجرد وحو شو وشو بيجري السوي لا شها ما يواجه هاي لما يسوق لكن سو ندوي هذيك اللي ضدنا كجري مركب حواي سيري أديك اسمه محمد سياد بري إنه سمير محمد سياد بري الله نحرس لاتين كوسن ودك كلها مركب اللي فهمني ودك وكب على قصاري فرماجن وعلى سارة نيكا حس على خير دبعته القوة الجلمود قص وليب جلمود واحد دبعته القوة وحس على خير يفهم ياسين ينما كان قدر يفرماجو مركا أنا كهدان هاي بيرها مذب دقنو يعني هو حجبانا غاني قشن كشان اللي وريتين أنا كمان عسلين أنا كمان حوينه وحنا إيه من حوينه أحمد دعاني قل حاف قلمود بساحكم ها أساحكم أنا ساعات قال كحيا مرة هذا برميش في عن والسي وعلي الوالس ولا راعي يدا يقبضي مركا بيش أبقى اسمه المدلول بدي ليه باشا وعشرة بدي ليه باشا ساعة بدي ليه صح أبيا لنا مالها شراك لجهرة ومالها وعشرة دقائق ماشي حصل على غير الرواي ولا لا وحو داريرك ودادنا يو بترول ومقلي markaasaa maskaxdiisii waxa ka kacay mataqa indhii ku furta wax yaraa u dhiman cudur batrool oo qabaay marka musammareen wuxuu ku sameeyay wadaad beesha ee maxaa arkay Facebook ku arkay beel iyo wadaala ee oo dhahayo anaga waana la qadiyay isagtin marka waxa waay dawladdan ninka la dhaho macallin maxamuud shilin baa ku shaqeeyaa ha lacag la siiyo lacag waa nimanka shiico waay qadar bay la shaqeystaa waa shiico marka waxa ku dhahayaa Axmed madaxweynaha galmudug waa xaad asaa doorashada sameynaa asaga qofku madaxweyne ka dhiga asaga asaa labadii sano u hartay marka reer mudugna waa meesha laalka la dhexeeyo waa meesha uu ceesho dego iyo meesha beesha sacad degto marka abba anaka badaan leenahay waa isbeesha uu ceesho baday leeyihiin marka anaka wabiina malihiin marka anaka reer galmudug mudug haddaan nahay madaxweyneena waa xaad axmed ducaali geel xaad soo qarab fiifa axmed geel haddaan reer mudug anaka galmudug nahay asaan la jirna حسن الشيخ محمود يا شيخ شريف وحنا جيسيات باتين ودن كان مركا هيستين شرفها كو هيستين وعطا مالنتو فرماجتو مدحوينها نقضي لبضك عن كقبطين ونيك توانك بين الشيء او يري هادا وحا قبواي بابور الدبضة وقلقايا وحودا حانقنا قضيات دقنين وحودا قفكي الشباب إيسو الشيء البقل كنا سينا أمامه وحسينا نيكي يري وعطين تدوصنا ودك حوالا نما قبل اسكول لنا نما قورين ارتبشو فرماج أفكي سي دقيس الاسم المقلو حاسا على قيرنا واتو فرماج من كستان واتو قير الدوف دوف ياشا نواتو مركا أبايو ورق الصعب أنا كان ورساء وكماشنا وكهبنا معارف بانا هاي ما أنتو فرماج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ورنتيد قبل كان وحي يسوق رئيسا كولومبيا ما في يدي كجرتي
meesha daroogada ka timaado soomaaliyana maanta waa saas daroogaa lagu abuuray ilmihii yaryaraa waxaa laga dharjiyey daroogo colombiyana waa ka daran tahay colombiya maanta soomaaliya waa ka daran tahay ilmaheenni waxaa la baray balwad daroogada waa baxdaa al-shabaabaa ilaaliya dowladduna lacagay ku qaadataa mogtiin marka taasaan inii sheegahayaa waxaa kaloo in leeyahay anigu sheekadayda ma aanan dhammaynin waa reer maraykan weeyaan alo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal lifean ku jiraa welcome xagee kasoo hadlaysaa iyo walaal waxaan kasoo hadlayaa maraykanka okay waxaan rabaa inaan ka dhiibto fikirkayga ku aadan barnaamijka cabaar la dhegaysanayay oo galmudug gaarinta galmudug okay walaalkay ku saco walaalkay shicibkoo ku maqlayaan okay su-aasha aan ku weydiiyo ma wixii reer galmudug keliya baa ka hadli kara mise wixii reer soomaaliya oo dhan may wixii reer soomaaliya oo dhan baa fikradiisa ka dhiiban kara walaalo okay si fiican barnaamijkan aad baan u taageersanahay inaad ka hadasho waana arrin loo baahnaa thank you dowladda filla soomaaliya filla wardhiigley waxay ku caanbaxday inay ka shaqayso sidii ay kusoo laaban lahaayeen shacabka maalin walba dhimanaya dhibaatada dhacaysa wax kasta dabcan ma siinayaan muhiimadda waxay siinayaan oo keliya sidee kusoo laabataa ma garata sax dadkuna waxa weeye qofkii ka fekeraya mustaqbalka soomaaliya iyo siday noqon karto baa ka fekeri kara wixii markaa taagan arrinta ka socota galmudug ma ahan wax la dhayalsan karo hal booliya nirig xaala ma dhasho waxaa muuqata in arrinta galmudug la gacan bidixeeyey annagu waxaan soomaalida haddaanu nahay kaleeto aan reer galmudug ahayn waxaan madaxweynaha sharciga ah ee dowladda galmudug u aaminsannahay inuu yahay axmed geelle ducaali xaaf waa ognahay sida runtaana waxa weeye wuxuu ku yahay waxa weeye waa la doortay nin doorasho ku yimi weeye shalay haddii uu isagu ogolaaday in dowladda soomaaliya ay arrinta doorashada kala shaqayso misna uu arkay sida ay wax u wadaan xaq buu leeyahay inuu ka laabto wuuna ka laaban karaa go-aankiisana isagaa iskale qodobka 3aad ee dastuurka soomaaliya baa qoraya maamul goboleed walba inuu u madax bannaan yahay doorashooyinkiisa dastuurka siinaya axmed geelle ducaali xaaf inuu isagu doorashooyinka qabto waa dastuur ay farmaajo iyo khayraba ka horreeyey oo ay dejiyeen dadka khibrad badan soomaaliya mustaqbalkeedana raadinaya sidaa darteed waxaa muhiim ah in laga warsugo arrinta axmed geelle ducaali xaaf iyo sida uu wax u wado aad baa loo taageersan yahay xildhibaanada hadda soo baxay waa dad reer galmuduga nina dabcan ma nibca laakiin muhiimadda waxa weeye inay si sifa xalaala ku yimaadaan baa fiicnaan lahayd gobolkan waxaa xasilooni ka keeni kara waa isfahamka bulshada waxaa cabanaya beelo badan sida aan tifiyada iyo ka arkaynay beelaha badan waxay u baahan yihiin in la turxaan bixiyo oo la yidhaahdo wixii ay tabanayaan dabcan laga xaliyo aad baan u taageersannahay dowladda galmudug ka dhalanaysa waayo nabadda galmudug waa nabadda soomaaliya gobolka soomaaliya ka mida intuu xaaladiisu buu ka jirano gobolladoo dhan bay ka jiraysaa laakiin muhiimadda aan kuu soo wacay waxa weeye inaan kuu sheegno inaan garab taagannahay axmed geelle ducaali xaaf barnaamijkan ay armaajo iyo khayrra wadaan nabar iyo naxdinna wax ka soconayana ma jiraan dabcan waa qorax casar joogto weeye waxaad ku garanaysaa kuwii ay soo dhiseen baa isku rogay oo jaa arkay inay nimankaan danta ay leeyihiin inay tahay inay soo laabtaan oo keliya hadda ka hor gabay baa nin wuxuu yidhi sidee lacag ku tacabtaan hadday toogadin noqotay marka sidee kusoo noqotaan bay wax kasta u burburinayaan aad baan isku salaamantahay waa ku salaamaya intaas ka qayb qaad thank you walaalkay macaan aad baad igu dheer tahay thank you walaalo thank you saad u ogtihiinba dhismaha lagu leeyahay waxaa laga dhisahayaa magaalada dhuusamareebeed dad kala soo galaya hadalkaygii maan dhammaysan weli taasaa problem ah dadkii taleefonkii waa iska soo daba dhacayaa asalaamu calaykum way ka baxday walaashay
ahayd marka walaalayaal waxaan rabaa wax yar inaan dhammaysto arrintayda waxaan rabaa inaan inii sheego madaxweynuhu sababta uu aaday oo idaacaduhu isla dulmarahayaan horta hore farmaajo wuu ka dambeeyaa dhibaatada jirta oo galmudug ka socota kow dheh sikin way isku ogaayeen markii UN-ta loo diray waraaqaha oo la arkay UN-ta oo la yiri immediately waa inaad u yeertaa ninka ra'iisul wasaaraha warqadihii uu ka soo tagay ayuu wuxuu yiri waa in la hogaamiyaa السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة سؤال لي ولا لا؟ جرمال كهذنا. إنجليز كولا لا. لايف ما في سنيسي. ليه قاعدك وارقي. أوكي. ما كقي قاعدنا يساوي حق المدو كالسعودة. والله واشين انتهي لا ما شاء الله ماما. قل مدو ماما. وإحنا كدر سنة يسا هذا لا قل مدو. ورانا هذا لا أقصد هذا وقال لي ما قلت ماما. ها ما شاء الله ما شاء الله مركب ما شاء الله ماما. Thank you very much مركب لا نسمع علينا إن شاء الله. يا. هدي أتك هذا الشيء الرماء قلمودك أوكي واي لايف يوم كجرا هدي والوضع مقلي. هذا كهذا ينيس. هي كهذا كاتورة قفة كجرا. فرماجو. هذا فرماجو يخير أنا وكسر جدا. هي محد عاي. waxaa uga soo horjeeda aniga qof walba qof qabiil ku dhaweysanayo qofkani waxa jecel cadaalad ilaahay wuxuu qabtaa ma fahanto ummadda islaamka cadaan صح qabtaa aniga kitaabka amdu male farmaajo iyo khayr boota iyo baan iyo isdaar ilaahay maalin ba jirto ummadna la dilaayo ma taqaanaa صح lacagii qadar iyo bixinaysana dadkii la siinayo jeebabka lagu bixisana 5 milyan lacag ma taqaanaa baad tagtay qadar bixis moogta ها ولا صعدة ها نعم مركي مدة سوق رحلة كوتا نسوي سود ويسوا وقد عصبة ما قربت ما شاء الله صح هي دار هو سمايي أنا قاعد على دون توي رقف كار شاب وحشة بقولكم عولية بقولكم وش كده أسكرتي قرحة تاج ودركي كو عدالة مشاركة ولا عن باهيسن صح مركي قفا مشاركة هذا نساعد يا الشاب سكت دفاع عمرك وسيا قولي خرديسي حاسكيسي والنضيسي وحش بشي صدح بالأمر بحر سنة لا بقولي كنت صح وحس مع عدالة أمرك ما هي عدالة ما انتاس وحن الله يا دت كيسي قبيل كيسي نيت اسمني ببين والبصية دتكو كده شو مقرت أنا دارت باي ولا أنا فرماجو لكن عدالة الله والشيء قبل يقدم يعني صح قبل اللي قالها يا مقدقة هاي كتاب إلهي قعدت قلي كتاب إلهي وكل أرتي ورتو كرسي كفري سنة دنتي سكرتي شقدي سوارك قلي دنيسو كراحدك كتابك ولا فضل هذا لا تقاد لا تقايات الله بدو ما فهمت خبير العالم مشك تدعود من كرا قبري ها وحنا ما ترى يسمع الفنايو ما waxa ka fiican lacag waxaan inaa ku si lacag qaado dhima lak umada wax u qabo wadooyinka dhis ka wax si xawaar qawinka ka saar umada masaajidka lacagta sadaqa bixi isbitaal loo dhis ها لعقت وأول بلاهي وكسي ما فهمت. هي. لك حرام بكتة لعقت سيرني لا تاي لعقت وقعت حرام وي. وقاي ماما ولا صعدة وحصل ولا صعدة. قدر بعد دليسها. مريكا لعقت سقاي جرمال كلا سقاي حليت سوما ده حنوصل. يوروبيان على سوق هذا هي. وندي ويستاجني كاسة دقعالو وهذا حلك خبرنا يسوي ما دجالت. وأنا واحد جالات. ها أنا واحد جعلنا فرماجو وده كادسو إذا ما دعسو ودوين كادسو بكذا عدسو وحول بق وما دبل ولا بشم بقول لح بقول على السيو لكن لا يا عسكري بش بقول قانا عم صدح بالأمر قانا وحاس أو قري كرنتدي يعنذي سي تخاديرتيس ولا ما سكفها من كتاب فهمت وفهمي كراهوي واحد حمر هذا دوام كيميت والله صعد عدبك كصعد مقالة ده وما هتصنتها ماما thank you very much أم كلها إلهي أذن كان هاي حافظه weligiina runta ka dhiidhiya ayadoona qabiil ku jirin ayadoona wax ku jirin daacad ha loo hadlo ana waxa jeclaa walaalkii la xamed dalka la khalday hayra dhowsaa khaldan waxa dhacay ilaahay bay jeedo fahanti sax marka farmaajo dalka wax ku wada dhibaato weyn I know saddex darmeel uu qabtay bal ii sheeg meel uu dhisay bal ka dhisay laba buu soo tababaraya afar qof uu soo xiraya wallahi dadkii taqaanay inta dhimatay kulli intaas milyan ka badan waxa ma dhimatay milyanina dhimatay inta aan ognahay qaraxii afgooye wixii ka horeeyay 13,263 dhimatay
هاي صوبت كنا كنا لله ما هو مركز نكاس ما يلاقي كودا ربنا محدود مقاومة وحلي حف إله حاجة سيا خير حلي كوي لا تكمل حوينا ويا وهو يسأل ماشي إيه روح وارد معي كره لك إيه كاي كره ماما ما فهمت صح ويا ما مركز واحد مع عدالة بقى ومدي ولا لا يدك مساكين تا قري ولا يكرينيا ودويك وحريهن دولك وبابيهن دتك ولا فرماجو قدر با دتك لا يدي ومعلومة دتك واسكر ريبينا قدر واسكر قبنينا قدر إن شاء الله برمعنتو dad badan leenka ku jira waa mahadsan tahay insha Allah biidnillah alkariim waa ku mahad celinaya thank you mama insha Allah thank you mama da mudan mama marka waxaan nii sheegayaa markii ay isku dhaceen leeyahay maaragtay dadka caytamay ay waxba ma dhigto ayda waa lagu naaxa waa lagu qurxoonaadaa waa lagu yaraadaa waa macno ma leh qofku markuu nadiif yahay caay waxba kama qaadayso anigu caay malihi laakiin qofka caydayda ku raaxaysanaya khayr allah siiyo ku raaxayso ودانين ماي قفك عيتا ماي لو وحو يقاضا عين مالي مركا واحد ربنا إنا نيني شاقنا بركي دادكي وحي سوقر هيا دادباكو عينها هيا بلوك سار لساري مايو ها عيتمو سو يقو مجري هذا الكاسو مي سوقر هيا مي عينايو أبالو إيها هيا كوا ذوي معانا عيدا مركا وحي نيشاق هيا مركي والي سكونا عين لبادي نين وحال يري ها آدينينا والله تليفونا دي عاو وحي سكاكسو دبا دعيا محاكا هقل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما ساتا ماما وافي عنها وحان ujeedaa inaad talyaaniga ka soo hadlaysid maama waxaan ka soo hadlayaa magaalada Roma gaar ahaan dalka Talyaaniga sax soo dhawo waayo aad iyo aad u dhawaay waa kaaga mahad celinayaa fursadda qaaliga aad siisay haye hooyo macaan horta waxaan ka hadlayaa arrimahan galmudug ka socda haye ka hadal ku soco ana waxaan ka soo jeedaa magaalada Ceelgaras haye horta ma doonayo in maanta lagu xadgudbo reeraha beelaha kala duwan magaalada ku nool sax dadkan hadeer meesha waxa way imaadeen mas'uuladan dawladda ka socdo in dadkii intaasoo sano nabadii ku noolaa oo walaaltinimadii iyo tirisnimadii galgaceelkii wax walba ka dhaxeeyay waxay ku bedeleen cadawtinimo sax dad ayaga xaggooda ka socday rabaan inay maamul ku dhiibtaan waa la ogyahay taas cid walbo dhaqan iyo waxaan laan jirnay caado soo jireen anaga haye odayaashanaga dadka soo dooran jira ayaga dadka soo xilan jira haye arintaa mid ka duwan ee la yimaadeen balse dawladda hadda jirta ma hayaan arrin ka duwan waxay isleeyihiin xoog ah ku qabsataan waddanka ulajeedadu waa saas afgembi ha lagu qabtay isleeyihiin Soomaaliya iyo Muqdishoba taasna macquul ma noqonayso waa ogahay laakiin waa mid ay ku rajo dheeriyeen maama reer dhan oo dhisnadii odag laga wada kawaran oday kale loo keeno waa dhibaato wallahi iyo reerkii waa dhibaato isma fahmayaan sax marka wallahi dalkeena waa u duceynayaa maamo ducada badiya ilaahay inuu dadkan in ka kiin kor qaado oo sanadkuba orod nagu moodo ducada badiya annaguna dacwooyinkan wadnaa insha Allah biidnillaahi alkariim dhibaatada kale ka jirto Muqdisho rabaa inaan ka hadlo haye maama horta Muqdisho anaga dawladda magac ahaan oo kaliya anaga dawladdu leenahay magacu kaliya ka haysana haye wax kale oo inoo dheer ma jirto haye waxaan dhibaatooyin ahayn kuma qabno dalkeena haye dil dhaac kursi qaraxyo aduub aan la ogin marka maamulahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay anaga aan noqono dadkii maanta gacmaha isqabsado oo iska fikir ay tiinkooda ka fikira haye qabiil waxba nooma taraayo dadkan mareexan ku taageerayo farmaajo iyo dadka faraha badan ee ku taageerayo kheyra mursadaha qabiil waxba nooma taraayo qabiil anaga intaasoo sana isku soo layneen haye
soomaali meel walba ay joogto waa u duceynaya ilaahay ha ku dhooro aye insha allah guul iyo gobonnimaan rajeynaya maama adigna aadan kaaga mahadcelinaya thank you hooy macanta thank you hooy macanta thank you aamin kulligeenba marka walaalayaal waxaan rabaa inaan maaragtay programka aan sii dhammaystiro barkay wixii aan ku hadli lahaay oo dhanba taleefanaan ka dhammaan waayey marka insha allah qofkaan aan ugu daba marsiinaya kabacdi taleefanada waa joojinaya insha allah bismillah dadkii wallahi waa wada kacsan yihiin wallahi dadkii waa wada kacsan yihiin aad baa loo wada kacsan yahay waxaan meeshaan ka arkayaa idinkoo raalli iga ah qof baan rabaa in aan maaragtay saakina way soo wacday qofkan inaan maaragtay geliyo inaan geliyo marka ma arko insha allah hadday soo wacdo waa ka qabanaya saanan ku dhaafay marka waxaa dhacday markii saas ay iskugu dhaceen oo asagii baxay oo aaday bahashii qayrana uu yidhi sheekada xamar ka wad xamar soo fadhiiso gaalada iyo un yaynu ku arkin laakiin taleefonka dhuusamareebka ka dhammaanaa la yidhi macallin maxamuud iyo sheekh shaakir lacag unbay u fadhiyaanay qaataan bal galmudug oo dhan culummaduma waxay dhaafsan kartaa lacag marka waxay nii sheegayaa goordhow waxaan sugi doonaa waxa ka soo bixi doono bahalkii السلام عليكم ماما المغرب وأنا قرأت لكم حاول تدخل قاعين الجاسد ماما معنا ملا هوي معنا عايد معنا ملا وحبي ما قاعد أيام بلوغان ساري قاركود جا هل كاسان كلا السعودة مركا دون وري هاو نحن لو ما نحو ما يهويو قفكو وحو هو يدي أبي كسو أركو كو عايتما بركي هبرتي ملحن كو أركو ملحن كو أركي فاميلغودي كسو أركين موقتاي وحي فاميلغا كسو أركين دادك كو عايان ما مرباي لما برباي شرخوا دي والد عرض لها حتى تاسي نقرأ عاس ما يا اسك حرام واي دادك وحا ilmaha horta xalaash aan ahayn oo dhan dhibkaasay qabaan moogid hadda ku fiiri quraal ba ku soo qoray dad ku caaya waxa wasakhiin tarabay macna ma lahooyo macaanta waa mahadsan tahay maama ha caytamaan iska u bixin hooyo ha u bixin maama ha u bixin ya ها وسوق له هوي ها وسوق له ان شاء الله ان شاء الله هوي معك ثانك يو معنا ملهان aniga waa naqaanaa dadka caytamaayo bilibo waxa ku jira kuwa aan si fiican u naqaano oo wiilasha ila dhashay ee jaa ka arkeen calaamad ka qorteen si fiican u yaqaanaan ayak adinka inii ka rabaa ragnimadiina saa ula xiriiri leedeen magacadoodana waa taqaanaan runtaa marka taasaan leeyahay marka waxa inii sheegayaa farmaajo waxaa loo soo diray 5 milyan iyo 200 waxaa la yiri Eritrea aadin waxaa laga cabsi qabaa in uu la xirto imaaraat oo qadar ay dhaxda ka baxdo sabab hadda xasuusataan erey waxaa jirta madaxweynaha afkiisa ka soo baxay oo ahaa maalmaha kamid ah markii shacabkii la dhameeyay oo qaraxii ku batay oo arkay qayran inuu waxba ka qabanaynin Fahad Yaasiin oo maca tacsi walgis oo soo istaagin idaacad oo la dhihin Allah u naxariisto Soomaalida dhimatay Maxamed Cabdullaahi wuxuu yiri maanta waxaan aaminsanahay uu yiri dawladda anigu aan madaxa ugu sareeyo ahay waxaan ogaaday in al-shabaab uu ka buuxo yaa keen al-shabaabka Maxamed Cabdullaahi gacan buu la leeyahay inta aanan dhaarta madaxweynimada la marsiinin waa la kaxeeyay waxa la geeyay Dayniile waa la baray waxa la yiri wiilkeena tahay gabadha naga qabtaa shaatiga noo wada la yiri annaka shaqaysanayna la yiri okay wiil ma hadli karo wax ku cusub ma aan hadeertaan ninka Fahad Yaasiin la leeyahayna waad ogtihiin orama waa gudbinay annaka qoraalkii aniga iyo dad badan oo kale United Nationska Mareykan meel kasta waa loo gudbiyay Belgiumka waa loo gudbiyay aqalada Europeanka Fahad Yaasiin waa madaxa ugu weyn al-shabaab waa ninka lacagta qadar laga soo qaado oo Soomaaliya lagu dhameynayo lacagaha ninka bixiyo weeyaan maaragtay qadarna aan ka takhalusi doono international dacwa lagu furooya dacwooyinka iska dhacaya laakiin wali waxaan ka soo jawaabin qoladii Turkiga marka waxaan inii wadaa sababta uu meesha u aaday wuxuu rabaa inuu loolan culus farmaajo la galo qolada la leeyahay Imaaraat oo qadar meesha uu ka saaro qadarna waxay diidaysaa
asaga wuxuu yidhi waa heshiisiinayaa qadar iyo eritrea boqolka sano hadda soo socda kama soo kaabsanaysa dhibaatada qadar ay u geysatay shacibka soomaaliyeed mana maqli karaan eritrea qadar waa soomaalida waxay ku dambeeyaan yaa noo keenay qadar annaga waxaa noo keenay fahd yaasiin wuxuu yidhi dowladda xukuumadda ugu sarraysa ugu taajirsan waa aniga anaa dhistay dowladdan buu yidhi waa inaa halhal u baabi'iyaa dadkao dhan marka waa saare abo cabdulqaadir cali soomaahan waa saare kabacdi adaa la hadli doono sababaha ku kalifay inuu facebook islaameed intuu soo galo oo ka caytame marka waxaa inii sheegayaa marka eritrea waxay isku dayaysaa inay imaaraadka iyo isku xirto soomaaliya qori xeraan in ku dhaarshay soomaali maxamed ee meel allaale meeshaad adduunyada iyo qurbahaba aad ka joogtaan dhibaatadii soomaaliya ay soo martay maanta maalin ay uga xun tahay male midda xamar taalla xamar waxaa taalla geeri ma dhammaate la yidhaaho xamar waxaa taalla qaraxu markuu dhaco dhaawacyadii isbitaalladay dhooban yihiin qabiil ahaan baa loo diiday in loo kaxeeyo haddana keliyihii baa lagala baxayaa iyakii oo dhaawaca waa dhibaatada adduunyada ugu weyn marka dowladduna waad ogtihiin inay dowlad al-shabaab ay tahay السلام عليكم ما واقف هذا سلام مركو حين لا ولا ليال مركو دولة ودولة الشباب شباب كبوحو مدحنا الصومالي وقص الرئيس والشباب كان نحو نفتوى إذا ماذا ودنين تلقولي هاي وإذا ما أوصى ما يستيب محمد عبد الله فرماتشو طريقة مركي مرة يعني الشعب كون حجران سان لو أغانين طريقة أضو مرة هي وادو قيدين حمر انت حافظ وضو سوق عدت القتوبت حس كما وان إنسي الشيء ما أنت اللي سميه وكوا وحدي لا يعني waxa la yiri waa inaad shicibka dhex gashaan oo dhameysaan haddana Soomaaliya waxaad ku ambraarugaysaan oo aad ogtihiin Soomaaliya waxa la rabaa haday 100 yihiin in konton la dilo kontonna laga reebo marka adinkay in jirtaa meeshaan dawlad ma taalo geedda dhuusama reeb taalana ha isku xujeynina ha ka fakrinina barkee dawlad ma ahan dawladda taala in mataqaana in dhuusama reeb عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة ماما. وافي عنا يا ماما. لايف كنت شفتها؟ لايف كنت. أيه. أيه. ما حد كجي سنة يسا. لمن كان وافش المان سوماليا مالف عنكم وضان ولقوهم قوبي. صح. وحي كلو سميين اللي بقى النضا. baarlamaanka aqalka hoose ku jira ka soo jeeda aan koonfurta ka soo jeedin waqooyiga u badan waxay u gadeen baabuur bulletproof ah lacagna way siiyaan ilaa 75 xildhibaan guriyana way dejiyeen si ay ugu jabiyaan xildhibaanada saxda ah oo wadankan ka fakaraya sax waxaa isku milmay oo sida saxda ah dawladdan ka buuxa nimanka ayaga ahaa shabaabka ayaa tifka ah taa waa marqaati ma doonto wala oge qaybta markii aad ka timaadid wadada isku xirta tiyaatarka iyo qaybta nabasugida oo guriga barqaajal dhigi jiray waxa kontrola fahad yaasiina kontrola waa ogaa wuxuu kaloo sameeyay uu yiri waxaan ku xirayaa magaalada baaladan oo TV kaamirada ah sax CCTV gaan ku xirayaa haye asagana kala soconaya xaruntiisa waliba qandaraaska sax qaatay haye u suurta gali meesha markasta oo baarlamaanku xilligii jawaari la eriyay ninkan lagu bedelay baarlamaankii waa baqtiyey isagoo meyd u meel yaala waa la tuura sax marka farmaajo wuxuu ku riyoonayaa waxyaala xilli hore dhintay oo tegey oo ah in wadankan uu asagu sida ninka la tireeya uu noqdo sida ninka la tireeya ha marka
asaga buugga usoo akrinaya saas uu aaday midda kale dad tira badan oo aan dowladda ku jirin oo dhalinyaro u badan ayaa lacaga badan la siiyaa oo lagu siiyaa brobaanka inay dowladda faafiyaan weliba reedii muqdisho ninka haysta idaacad wasiirka iyo brograamada ka baxa inta badan waxaa lagu jahwareerinaya ummadda se life ay ugu jiraan waxyaalaha aan socon oo ka xun dowladdii gacaanka ahayd xilligeedii oo la dhihi jiray qoladii dhihi jiray guladayaasha sidii xaafadii orientationada brogram been oon waxba aan soconin dowladnimadii lagu naaloonayay ayaa idaacaddu faafisaa raadiyo muqdisho marka taas waa ayaan darro usoo yeeta soomaalida maalin dhowt waxaa dhacday wuxuu khayre ka eriyey staafkiisa ama madaxtooyada 3 xaafadooda loo kala jaray qayb khayraa degan qaybna farmaajo degan qaybna waxa la bil Hargeysa la yiraahdaa bil Hargeysa waa qarnaha marka bil Hargeysa qof markuu socdo nimanka Yohaniska la maraa kadib baad galaysaa taa aad u macadka albaabkaas xilwaanada iyo dadka ma garatay caadiga siyaasiyiinta way tagaan labadan kale waa la kala jaray macnaha bil Soomaaliya 3 xafadood baa laga dhigay taa waxay ka dhiganta macnaha haddii xataa ay dhacaan waxay ku talagaleen inay xaafad ka mid ah sii degaan marka development loo taliyay nimada Soomaaliya ala waa meesha dhameeyay dawladda laga hogaaminayo taasoo ayaan daro u soo yeetay in bil Soomaaliya oo dhisay ilaa iyo ma garata kontonka la dhisay ma garata xilligaas la dhisay inay 3 xaafadood ka dhigaan ayagoo amaankooda u baqay kana rabaan hadhow inay xaafado ayagu ay degan yihiin ay noqoto oo shakiba uu ku jira dowladda meesha ku shaqeyn doonto bay taas ma noqonayso waa isleeyihiin yaku waa dad maskaxdooda iyo qalbigooda ay maangaab yihiin oo meel dheer aan wax gaareen qayraha lagu sheegayo marka isku soo wada duub nimankan xaqiiq waxa oo lagu shakinaynin in ay nimankan oo argixisada ay la shaqeeyaan waa loo yahay taas marka la ka raba qurba joogta siyaasiyiinta culimada dadka dhargaradka odayaashii inta badan way la luusheen mushaar bay qoran yar oo ma garatay oo san dareerta mana ka fakarayaan wadankan meesha u socdo haddaad hadashida ma aan lagu marin scan iyaga iyo xarumahooda ma tagi kartid marka wasiirada qaarkood waxa ugu dhagan calankiisa saldhigyada booliiska taliyaashii la kala bedelay sawiradooda wasaaraha madaxweynaha oo lagu bixiyay lacaga intaasoo $100,000 ayaa hadda lagu soo dhajiyay sidii ma garata kacaanka wadankan dimuqraadiyad buu qaata muhiimna ma ahayn sawirka lagu dhajiyaa saldhigyada ma garata waa garta waa la socdaa aniga haddaan ka imid xog badanna waan hayaa intaa kasii dheeri ah insha allah intaa kasii dheeri hoos baa iskugu sheegi doonaa insha allah maama maraba si babliga marka maya telefonkaadaan xareysanaya maama telefonkaadaan xareysanaya wadanka Soomaaliya la yiraahdaa meel xun buu ku socdaa dad aan dan ka lahayn ayaa gacanta ku haya oo kala jeclay islaamo badan oo waliba waxaa nasiib darraa dumarku ayada laga dhimanaya ayada wiilkeeda dhimanaya wadanku meesha ku socda ayaga dhibaatada u badan ku dhacaysa shaqada la qariyay haddana ayagii baa kuwii golaha ugu jiray baa baawur loo gaar xabadu karinin qaar aan magacooda qoraqoonin xildhibaanadan waa ka buuxaan baarlamaanka kuwaana magacooda aan istuudi lahayn waa ka wada buuxaan marka olba culeysna waa intradoodu ونحن حمل كرنا لقى بكرنا خرج كقطعان صح marka waxa soo dhan waxa weeye waxa meesha ka socda corruption waxa ka socda laaluush waxa ka socda been waxa ka socda program dawladda qofka saxda ah oo ma garata ama aqoon ku yimaada ama si ma garata wadankan oo meesha ka kaco lama siinaayo looma ogola sagoon scan la marin qof aad arki kartaa ama aaga ma imaan kartid waxyaalaha la yaab kale waxa ka mid ah waxyaalaha la yaab kale waxa ka mid ah airportka muqdisho internationalka maxaa laga saaraa iyaga maxaa laga bixiyaa wanuga wala socdaa maxaa laga bixiyaa waxa la keenaa irinta ugu horeysa oo sliga booliska la keenaa
waa laga saaraa hameenkii marka waxay u baahan tahay waddankaanu in wixii dhigi loo kaca dadka diaspora qolo joogta inta ma garata fiican oo qabiilku uusan madax marinin baashaan dib lagu laabto maamul goboleedyada systemkii dowladii federaalka ma shaqeynayo ninkaanu baasha waa la fadhiistay ayagaana ka shaqeeya arrimahan oo dhan ma fahan insha allah hooyo macanto waa ismaqlaynaa ninkii ay isiraahdaan ninkaanu wuxuu idin dhimi karaa ama bulshadu kicin karaa ama arrimahan jiro dhan xogtoo dhan buu ogyahayna waxay sameynaya inay haba dilaan ama ma garata ay haddadaan ku sameeyaan marka soomaali fadhi uma yaallo yaan kusoo gabagabeynaya aad baan insha allah adaa mudan adaa mudan way waxaa kaloo dhan qabiilo iyo ma garata ummadaha kale dhalinyarada kale ku jirta ama dadka kale dad wax fahmaya ma ahan xagga batroolka aad ka hadlaysa saameyn dhaweyto meel yara hub iyo wan oo u jirta 75 kilomitir hub iyo waqooyi ka xigta ayaa shaalku ku jira badda qarkeeda marka taasna inaan kuu saxa mar waan rabaa insha allah saameynka dhaweyto insha allah kugu xiraanahay wixii kale oo macluumaad hoos baan kugu sheegi doonaa insha allah hooyo ana ku soo wacay thank you very much thank you marka walaalayaal waa soo gabagabaynayaa waa ku dheeraaday waxaan inii sheegayaa sidii uu u afgambin lahaa sidii oo Soomaaliya loo afgambin lahaa waad ogtihiin inuu kaligi taliye yahay ninka Eritrea haysta waa la socotaan Soomahan waa soo jaamacad aadahaya sidoo waxyeeli lahaa ayuu ka soo qaadaa Eritrea ama Soomaaliya uu afgambin lahaa mifahmaysaan asaga iyo walaalkiis Xasan Cali Khayre isma aaminsano dad baa waxay ku dhaarteen Xasan Cali Khayre maxamed siyaad barraa dhalay wuxuu waa ilmaadeer marka waxaan inii sheegayaa walaalayaal oo hooyadiisna guulwada ay ahaan jirta naag aad u qurux badan bay eedaa liiri ma una raacin quruxda abarta marka waxaan inii sheegayaa walaalo meesha wuxuu u tagaa inuu arrin ka soo aruuriyo in arrintaas uu ka soo aruuriyo wuxuu rabaa in uu ku afrogo Soomaaliya laakiin caawa midaad iga qoraysaan ama qaraxyaha siyaadiyo anigu al-shabaab waan la hadlay ilaahayna waxaan ka baryahayaa dad sharaf leh inay noqdaan intii dhiman karto ummadda nebi maxamed waa dhimatay aakhire ilaahayga caza wajalla dhiig macafiyo inayna dhiig shicib aan waxba u geysan oo waxba ka galabsan oo lacagtooda canshuurta inta laga qaada lagu dilahayo yowmal qiyaamo waxaad ku xisaabtamaysaa caawa hadday tii rabbi kuu timaado waxaa lagu dhigahayaa 2 mitir iyo bar qabriya oo madow ciidaa lagugu ragaawaan xisaabta ugu xun meeshay kaaga imaanaysa waa meeshaas waxaad adduunku geysatay marka haddaad naarta rabtaan inaad tagtaanna wixiina horay u sii wata haddaad ilaahayna dariiqa fiican ka baryaysaanna dila dowladda isticmaarsanaysa oo shacabka lacagtiisa dhacaysa oo shacabka lacagtiisa ku camal falanaysa oo ayakoonan afduubi karin magaalada muqdisho afduub ayuu wuxuu u raadsaday in laga soo waaniyo Eritrea waa keligii taliye wow dhameeyey ummadii Eritrea wow xasuuqay wax xiran iyo wuxuu tirgeeyo toogtoo ka dhigay ma fahmaysaan waa laga yaacay sheekh shariif magaaladii looga yaacay adduunko dhan ayaa waxay saareen cunto qabeen kan dhan raacan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu yiri Eritrea laga qaado dhan raac Soomaaliya lagu soo dejiyay hadii ayada laga qaaday marka madaxweynaha Djibouti waxaan leeyahay be careful dab aad u culus waxa shidahayaa Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaare ka ah magaalada Ethiopia waa tuug kaleeto oo dhacay Ethiopiaanka xoolahoodii oo guriyo ka dhisanaya maxamed cabdullaahi farmaajo isaga waa shirko marka waxay inii sheegayaa walaalayaal ninkan wuxuu u yimid inuu soo xiro ciidan maahan talada keligii taliyaha soo ku afgambin lahaa soo wax ku qaban lahaa qofkuna mar hadduu gaaro waddankiisa iyo systemka waddankiisa inuu bannaanka u bixiyo siyaasad ma yaqaana ninku kowdhaha taasaad ka ogaanaysaan walaa qayraan siyaasad aqoonin barkii corruptionka iyo lacagaha uu gubaayo waa lacagii shicibku lahaa dhulka lagu dhisaayo iskoolada iyo isbitaalada lacagaha la isticmaalayo inta ay ka saari karaanna way ka saareen oo waad ogtihiin bangiyada buuxa sheeri batroolay ku darsadeen lacagii caawinaada wax kasto waxa hadda dib loogu noqon kara maahan laakiin maana tartiib aynu kusoo sheegi doonaa lacagaha baxay oo dhan waa lagu wada daba jiraa joogagooda ayaan dhaxdaasana waa inii sheegay waa la daba socdaa lacagii waxa marka la sameeyey galmudug waxa loogu talagalay wuxuu yiri maxamed cabdullaahi farmaajo hadda ka hor ma xasuusataan hawiyuhu waa caada qaato yiri waa dhunraac wadani maahan haddaan lacag siiyo ayaga shaqadood maahan uu yiri lacagtaasi iska qaadanayeen waana jeeb yar yihiin uu yiri lacag yar la siiyaa
sida gaafo oo kaleeta maa la yiri magacaa la siiyey anaa soo hubin doona oo 1 malyan la siiyey nin caan oo aad taqaanaan marka waxaan leeyahay walaalayaal xasan cali khayre meeshaas oo taleefanka dhuusamareeb ku jira xildhibaanay magacaawdeen aan la aqoon meel ay ka yimaadeen dadkii waxa lagu cadaadinayaa Ethiopiankii iyo qoladii Amazonka ahayd balmo Ethiopia ceelbuur hadduu wax horeynayo ninku ceelbuur buu geysto soo xoreysto Ethiopiankan iyo Amazonkan meel ay ka socdaan aan loogeen marka walaalayaal waxay ii sheegayaa ilaahay hayna xaafido geedda dhuusamareeb ka jirta khayre waa ogyahay afgambi uu ku qabsaday dhuusamareeb waxna kama socdaan kitaabaa waxa la saaray faraha foodooda hore u fiirsada cajalada kuwa oo dhuusamareeb lagu dhaarinayo faraha cidiyay saareen cidiyaha ilaahayna waxaan uga barinay kitaabada beenta loogu dhaarinayo waqtiga xaqoodu soo daalici lahaa ilaahay ka dhigo halkaana in ka salaamaya walaalo Soomaali guulaan u rabaa ha is raacdo ilaahayna waxaan uga baryahayaa cadowga iyo xaasidka kow waa ninka maajo iyo ninka la leeyahay xasan cali khayre ninka la leeyahay Fahad Yaasiin oo al-shabaab madax u ah iyo naagta la leeyahay sayna macallin oo naagta madaxweynuhu oo qaba ah oo ka dambaysa abaabulkan aan afgambino laakiin waa ku dhimanayaan magaalada xamar dashuruud waad arki doontaan hadalkaygana waa soo xasuusanaysaa haddayna saynab hadda ka cararin marka taasa in leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahayna ha xaafido Soomaalida meel allaale meeshay joogto biri subaxna waa is arkaynaa